su-aasha xaggayga kusoo dhacay xagga emailka ugu horeyso caawo waxa weeye gabar saa'ilada ah saa'iladan waxay leedahay sheekh marka koowaad waa ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxay leedahay sheekh waxaan ahay gabar da-yar oo hadda guursatay oo in muddo gaaban zoojkeygii aniga aan wada nool nahay marka waxay leedahay walaashan zoojkeyga yani wax dhibaato ah nagama haysato xagga yani akhlaaqiyaadka ama xagga sariirta wax walba oo kee weeyaan bay tiri laakiin hal cilad baan ku arkay bay leedahay zoojkeyga markii uu ii baahdo yani qolka jiifka ayaan wada joognaa laakiin jiif iyo hurdo markay timaado ninkii aan isqabnay zoojkeyga ah wuxuu leeyahay hal sariir ah ma wada seexan karno marka taas waxay kaliftay inaan sariir la ii dhigo qol ka mid ah qolalka gurigeena ah markuu ii baahdana aan qolka jiifka iskugu imaano marka waxay tiri arrintaas aad bay qalbigayga u dhaawacday oo markaan kala hadlana wuxuu igu yiri ma seexan karo hadduu qof i ag jiifo qalbigaygana aad bay u dhaawacday waxaan u dareemaya yani inay meesha u jecel yaalin marka marar badan nafteyda waxyaala kala duwana ay igu sheekaysaa marka waxay leedahay gabadhan ma rabo inaan noloshan aan ku jiro anigoo da-yaroo hadda guursaday marka go-aamo nooc kala duwan ayaa maskaxdeeda kusoo dhacaysa marka waxay leedahay sheekh abu talxa ilaahay khayra ku siiyo talooyinkaaga wanaagsan waan dhegaystaa mar walbo marka waxay leedahay walaashan tala ayaan kaaga baahanahay maxaa ii banaan diintana maxay yani ifaraysaa maxaa wadana ii banaan iina soo ducey ba leedahay falyatafadal mashkuuran wamaajuuran sheekhuna الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد gabadhan dhalinyarada ah guurkuna ku cusub yahay waxay aad iyo aad oga mahad sheegatay zawjkeedii iyo ninkeedii wayna ku mahadsan tahay iyadoo da-yar inay zawjkeedii ay ka mahad sheegato hase ahaatee su-aasha meesha taalla ama cilada meesha taalla hal qodob bay ku tilmaantay inaan aniga iyo zawjkeygii aanan sariir ku wada seexan karin oo markaan isu baahanana sariirta aanu xaajadayada ku dhammaysano markay xaajada noo dhammaatana fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illah taasi gabadha waxay tilmaamaysaa inay murug iyo walwal iyo walbahaar ku hayso go-aano ayaa igu soo dhaca macnaha waxaan u fahmayaa inaan ninkani aan kala tagno iyo waxa lamidka ah waxaan ku dhihi lahaa zawjkaaga waxaa laga yaabaa inuu xanuunsan yahay bini aadamku way kala duwan yihiin soomada arkeen qaar baa khuuriya oo deriska laga maqla soomada arkeen qaar baa markay jiifaan afka kala qaada oo aad moodaysa waa hore inay naftu ka haday soomada arkeen qaar baa markay jiifaan aad moodaysa mas asaga dhanba jidhkiisa oo dhan isku noqnoqonaya oo aad leedahay qofkan sidan u jajaban waa maxay soomada arkeen qofba intuu isduuduubo markuu seexanayo waxaan lahuwado qalabkan lahuwado isku duuduubayada war xageebuu ka neefsadaa mid baanba madaxiisa waxba saari karin dadku way kala duwan yihin mid baa indhaha kala haya oo markii aad sa u fiiriso waad dhihi maqoomka asxaabulkaafiba oo indhahuba kala hayaaba haddana waa hurdaa mid baa sheekaysanaya oo asaga dhan baad dhihi ninka ma qur-aan baa akrinaya mise waa lagu akrinayaa ma cid uu aanan anagu arkin buu arkaa mid baaba intuu lugeeyo oo musqusha galo ayuu soo noqdaa isagoon ogeyn qaar baa dariishadaha laga celceliyaa anigu abu talxa ahaan qisooyinka aan la yaabay isoo maray waxaa ka mid ahaa nin xaaskiisii marka ay xidhiir doonayo inay dhaxmanaan isagoon ogeyn buu wax sameeyaa maba ogaba wuu jiifaa wuu soo kacay xaaskii buu aaday shaqadii buu dhammaystay shaqadii markuu dhammaystay waagu markuu baryaa la dhihi xalay waxaasaa samaysay ma aniga xalay jimaac galay ha adaa jimaac galay miyaad weligiin waxaa aragteen nin dhan oo xaaskiisi u tegaya oo shaqo dheer gelaya oon haddana ogeyn gabadha waxaan intaasoo tusaale ugu soo qaaday horta waa inaad ogaato dadku waa anwaac dadku waa aqsaam dadku way kala duwan yihiin markii horena
cudurkan iyo ciladan hore oo maydaan ogeyno wax la ogaan karana ma ahayn ninkaagu hadduu ku fiican yahay saas sheegtay dhaqaalaha aad dib kaga qabin gobasha lafteeda aad dib kaga qabin marka gobasha caadiga aad joogtaan hadalka aad dib kaga qabin normal uu yahay laba qof oo caado wada dhaqmaysa haddii ay tahay habeenkii xaggaa seexo anna xaggaasan seexani wixii baahi ana hal meel baan ku wada gudanaynaa aniga taladayda waxaan qabaa u sabar taladayda aan ku siinayo u dulqaado berri insha Allah awlaad bu Allah ku siino asagoon ku dhihinba xagga seexo yaaba laga yaabaa adiga ilmahaaga inaad wehelaasho oo ilmahaaga yarka hoosta ka gasho oo uu hoosta ka galo oo habeen barkii kugu ooyo wayna dhacdaa rag badan oo reerade inay marka ilmo u dhashaan maxaa la yiraahdaa la kala guuro way dhacdaa marka qaarkood marka horta ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan kaaga baryay awlaad ka mashquulisan ninkan markii uu qolkaaga aad u guurto ilaahay inuu ku siiyo tabaaraka wa tacaala dhageysabal qolka dhibaatada ka jirta su'aalaha la isweydiinayo iyo isu barbar dhig bal adiga arrintu ku haysata barwaaqad ku jirta zawjki waxba yaan marka la seexanayo ninkii isla sheekaysta fadhiga isla taga isla cuna isla cunteeya isla ciyaara jogogashi wada taga isla dhamaysa shaqooyinkiina hadii koortii la cibaadaysan lahaa way fiicnaan laba isqabta inay hoos iska sii galaane laakiin hadayna arintaasi ay arin socon weyday hadayna socon karin inta aad ku haysatay badan intaad ku haysatay kala badan kana si fiicane inta ku sabar oo candhuuftaadana dib u laq inta kalena ku miisaan haysana zawjkaaga meel la hooga dhaqaaqin wadaad dambana weydiinin wallahu a'lam